السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرين معجزة ودتا أرين ما دها بس قصة دها بس معجزة دها كلي waxaa ku tilmaamo maba aqaane magac usoo bixiya adinka mucjisadan saaka ayaa tiktok ku arkay sheekhan horta sheekh axmed al lahaa naag ayaa soo wacday naagtina waxay dhahay sheekhu miyaha maxaa la dhahay guriga inaa noo quraan saartaa rabaa gabdho yaryara ii joogo mid ugu weynna 10 sano ma gaarin yacni saddexda gabdhoodna 10 sano way ka yihiin soo marka waxay dhahday gabdhahayga maalin kasta subax kasta waxaa soo toosaa ay dhahday ayagoo marada laga fiiday oo cajaradoodana biyo lagu firdhiyay aan soo toosaayay dhahday arrintan waxay dhahday jinni miyaa ani waa yaabanahe kaalibal guriga iyo gabdhaha quraan noo saar sheekhu wuxuu dhahay intaanan guriga iyo gabdhaha aan quraan saarin waxaa loo baahan yahay uu dhahay arrintan horta wuxuu dhahay guriga kula jooga adiga ma adigii gabdhaha bisaa ma qof kale idinla joogo maya anigii gabdhahayga iyo odaygaygaan nahay waay maxaa dhahay markaas hay iiga waran dhahay odaygaada iiga waran wallahi mucjisadan ajaanibta ku maqli jiray carabta Soomaali xasbi Allah wa ni'mal wakiil inay fidnadana soo gaartay ilaaha naga qabto odaygaada iiga waran odaygii wuxuu dhahay way ka meermeertay odaygay wuu fiican yahay odaygaysan odaygay yacni waa is adkaysay laakiin markii dambe saa u qodqoday wuxuu dhahay waxay dhahday odaygayga marmar ayaan waxa arkay dhahday filmaan xunxun asoo fiirsanayo marmarka qaarkoodba asagoo fiirsanayo intuu hurdo waxay dhahay telefoonkii oo waxyaalahaas ku jiraan aan subaxii aan arkaa soo anigana waxay dhahday waa shaqeeyaa banaanka ka shaqeeyaa maxaa dhahay waa daalanahay yacni habeenkiiba dhaqsi fiida iska dhacaya dhahday marka horta meeshaasna cilad kale ka jirto hooyada inay yacni culays watankeeda ahayd ayada dusha iska saarto odaygana intuu guriga raaxaysto filmaan iyo balaayo fiirsanayo odaygaa laga rabaa inuu daalo oo waxaan ku dhahay nafta kasoo dhacdo sida habarta u dhacaysa inuu asaga u dhaco ayadan gurigii ilmaha iyo waxaan ku dhahay saq dhaxa intay soo kacdo gabdhaheeda haddee ka warqabto iyo reerka kuley maxaa la dhahay way ka warqabtaa laakiin haddana qofku markuu banaanka soo shaqaynayo uu gurina ka shaqaynayo daalkiis too much waay naftaaba asaaba dan cadow buu u dhacaabo hooyadaa marka horta waxaa leeyahay ilaahay maxaa la dhahay laakiin hooyo fiicanna ma ahan malihi kariye waxay dhahday odaygiiba difaacaysaaba sheekhu wuxuu dhahay intaan arrintan anaga aan quraan saar aanan la aadin horta wuxuu dhahay arrintan dowladda ogeysii gabdhahan dhaqtar gey gabdhahan soo baar caafimaadkooda ma nabad qabaan maxaa dhahay wax dhibaato maxaa dhahay gaartay bal gabdhaha xaaladooda soo ogow odayga soo baar naftirkiisa xaaladiisa soo ogow asaga miyaa waxaa samaynaya waxay dhahday reerka markaad saliim soo noqotaan oo maxaa dhahay oo odayga xaqiisana oo odaygan inuu asaga yahay laga yaabo shiiqa yacni laakiin islaantii way diiday oo waxay dhahday aniga ma rabo fadeexad iyo dhibaato inaan reerkayga maxaa dhahay aan wey ku doonto waxay dhahday khalaas arrintan intaana ugu harayaa xasbi Allah wa ni'mal wakiil wallahi qof kastoo bini aadan oo arko maanta tiktok isla wada gariiraa ku dhahay horta Soomaali waxaa laakiin ficil inay lahaadaan rajeena insha Allah biidnillah kuley hadda waxay dhaheen Soomaalida kiiskan waa galeynaa hooyadii aan raadinaynaa oo shiiqa waa la qabtay oo waxaa la shiiqo qoftii keen ilmahan aan badbaadino waan run horta ilmaha qatar ay ku jiraan hooyadiiba hadda maxaa la dhahay hadda war maqli lahayd dhihi lahayd tahay shiiqo waa sameynaa inay isla markiiba argagaxda ahayd ilan maxaa la ishaaro bashiiqa tusiibo oo dhahay ninkaada bal fiiri bal inuu maxaa la dhahay ilan gurigaas adiga iyo ninkaada iyo gabdhahaada bisa ku noolay xasbi Allah wa ni'mal wakiil xasbi Allah wa ni'mal wakiil adii kara arrintan mucjiso waaye soo laakiin waa is adkaysay waxaan ku dhahay intay ceeb ka cararaysay hadda ka horeeyta qisadaas way dheer tahay laakiin qiso tan la mid ah aniga maxaa la dhahay aan hadda ka hore TV live ka fiirsaday yani xaqiiqo ah oo dhab ah oo dadkii lasoo qabtay oo lasoo fariisiyay hadda gabdhaheeda way beerihiin gabar 20 jir ah aabaheed fal noocaas oo kale kula dhaqaaqay ilaa ay uur ay qaaday waxaa falalka noocaas oo kale ta markasta waa maqalnaa laakiin Soomaalida waa wax ku cusub oo badanaa waxaa la Soomaaliya dad iimaan leh waa waxas ma sameeyaan waa run laakiin zamankii ma ahan uu isbedelay hooyadii gabdha haysato gabdheedaha ilaashato odayga hadduu oday maxaa la ash ahayn waxaa indhaha inay ku hayso waaye soo marka maxaa la dhahay fiidiyahan sheer gareeya meel dheer gaarsiiya wallahi
والله aad maanta haddaa awoodaan ku dhahay gabdhahaas inaan soo badbaadiyo yaa reed laakiin insha allah soomaalida u kacday inay ficil sameeyaan allah kaso